dawladda engiriisku waxay ka walaacsan tahay xadhiga masuuliyiin xilal sare ka haya xisbiga ugu weyn mucaaradka Soomaaliland ee Waddani oo maalintii shanaad ku jira xabsiga. afayeenka xisbiga Waddani Barkhad Jaamac Batuun iyo xogayihii guud ee xisbigaas ayaa 17 bisha November la xidhay kadib isku soo baxu ku baaqay gudoomiye Ciro. madaxa xafiiska Ingiriiska ee Somaliland Eastward Brown ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyay walaaca ay dawladdiisu ka qabto xadhiga masuuliyiintan. ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in la sii daayo masuuliyiinta xisbiga Waddani ama la hor keeno maxkamadda haddii dembi lagu haysto. Master Brown ayaa qoraalka uu soo saaray ku xusay in ingiriisku uu soo jeedinayo wadahadal mar kale ay bilaabaan xisbiyada Somaliland isla markaana ka shaqeeyaan sidii ay u dhici lahayd doorashada golaha wakiiladu iyadoo wax dib u dhac ah aanu ku iman. masuuliyiinta laga xidhay xisbiga Waddani ayaa la sheegay in lagu xidhay xabsiga Madheero oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera sida uu hore u sheegay gudoomiyaha xisbigu Cabdiraxmaan Ciro. Somaliland waxa toddobaadadii la soo dhaafay ka jiray khilaaf xooggan oo u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda. khilaafkan ayaa salka ku haya xubnaha loo xulay guddida cusub ee doorashada kaasoo xisbiga Waddani uu diiday 2 xubnood oo soo magacaabay madaxweyne Muuse Biixi. Xadhiga Saab TV Hargeysa. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida